warbaahinta gobolka Amxaarada ayaa waxay ku waramaysaa in xalay gantaalo lagu garaacay caasimadda gobolka Amxaarada ee Bahirdar xilli uu dagaal ka socdo gobolka Tigray. Waa markii labaad oo gantaalo lala beegsado Bahirdar tan iyo markii 2 toddobaad ka hor ay dagaaladu ka qarxeen Tigray. Warbaahinta gobolku waxay ku warantay in gantaalada ay soo tuureen dagaalyahanada TPLF inkasta oo wararkaasi aan si madax bannaan loo xaqiijin karin. waxaanay warbaahintu intaasi ku dareen in gantaaladu aanay wax khasaare ah ka geysan magaalada. TPLF waxay ku eedeysay dowladda Itoobiya inay duqeynayso goobaha ay dadka rayidka ah ku nool yihiin ee dhinaca caasimadda Makela, balse dowladda ayaa beenisay eedeymahaasi. Dhowaanayay ahayd markii maamulka TPLF ay xaqiijiyeen in gantaalo ay ku garaaceen Eritrea. dhinaca kale madaxa hay'adda caafimaadka adduunka Dr. Tedros ayaa beeniyay eedeymo uu u jeediyay taliyaha guud ee ciidanka militariga Itoobiya kaasi oo sheegay inuu TPLF ka caawinayo hubka. Dr. Tedros wuxuu ka soo jeedaa qoomiyadda Tigrayga wuxuuna ahaa wasiirkii caafimaadka ee maamulkii Tigrayga. waxaa jiray warar sheegaya inaan dhinac taageerayo ma ahna arrin sax ah, waxaana sheegayaa in anigu aan taageersanahay hal dhinac waana dhinaca nabadda, ayaa uu Tedros ku yidhi qoraal uu ku soo qoray bartiisa Twitter-ka. wuxuu ugu baaqay dhinacyada ku dagaalamaya Tigray inay wada hadallo ku soo afjaraan xiisadda si adeegyada caafimaadka iyo gargaarka loo gaarsiiyo shacabka. shalay ayaa ahayd markii taliyaha ciidanka dalka Itoobiya General Berhanu Jula uu ku eedeeyay madaxa hay'adda caafimaadka adduunka inuu wado tallaabooyin uu ku garab siinayo TPLF xilli ciidamada dowladdu ay dagaal kula jiraan